bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu ana wanaagsan daawadayaal halkan warbaahinta kaahiye media kusoo dhawaada warka kaahiye media qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah oo kasoo baxaya shilay dad ku geeriyoodeen oo ka dhacay degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir odayaasha dhaqanka magaalada Cadaado guud ahaanba kasoo horjeestay ka qaybgalka shirkadda heshiisiinta Galmudug ee lagu qabanayo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi ciidamo fara badan oo la wareegay amniga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose barnaamijyo looga soo horjeedo madaxda dowlad goboleedka Puntland oo ka dhacay qayb ka tirsan gobolka Bari warar dheeraad ah oo kasoo baxay xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha gobolka Banaadir aan haduqa magaalada Muqdisho iyo xubno ka socda dalka Soomaaliya oo shir caalami isla markaana looga hadlayo arrimaha ganacsiga kaga qayb galay dalka Malaysia qodobada dibadda aad ku daawan doontaan warka kaahiye media waxaa ka mid ah ku dhawaad 20 qof oo ku geeriyootay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka Pakistan iyo faahfaahinno dheeraad ah oo kasoo baxaya qarax ka dhacay gudaha dalka Afghanistan mar kale daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkan waa kaahiye media haddii aad channelkan ku cusub tahay hamogaan inaad saarto subscribe like aad dhahdo share aad la wadaagto saaxiibada ku soo dhawaada qodobadii wararka kaahiye media aad daawateen oo intii hore ka faahfaahsan aynu ku bilownay faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya shil gaari oo ka dhacay degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir inta la xaqiijiyay hal ruux ayaa geeriyooday kadib markii gaari nooc carrada qaaday iskaragaha loo yaqaano iyo mooto bajaaj ay iskula dhaceen inta u dhaxaysay isgoosyada Howlwadaag iyo Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ruuxa dhintay ayaa goobjoogayaal waxa ay sheegeen inuu ahaa wadihii mooto bajaajka iyadoo darawalka gaariga shilka galayna uu goobta ka baxsaday goobta uu shilku ka dhacay ayaa ahayd meel aad u mashquul badan oo mararka qaarna ay dadka iyo gawaariduba iskula dhacaan waxaana halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliyeed se yeeshee aysan ku guuleysan inay qabtaan darawalkii gaariga shilka galay daqiiqada kadib waxaa sidoo kale goobta gaaray ehelada darawalka mooto bajaajta ee shilka ku dhintay waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada booliska iyo eheladaba ay meedka u qaadeen xarunta hay'adda dambi baarista ee CID-da shilka geystay khasaaraha isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa qayb ka noqonaya shilal noocyo kala duwan leh oo ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo intooda badan geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana shilalka soo laalaabta loo aanaya darawalada qaarkood oo aan qoon buuxda u lahayn kaxeynta gawaarida iyo qaar ka mid ah wadooyinka gudaha dalka Soomaaliya marah oo aad u burbursan dhanka kalena odayaasha deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Cadaado ayaa ka soo horjeestay ka qaybgalka shirkadda heshiisiinta dowlad goboleedka Galmudug magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxaa kulan ku yeeshay xubnaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Cadaado iyo odayaasha waxgaradka magaaladaasi kulanka ayaa inta badan waxaa looga hadlay sidii odayaasha Cadaado uga qayb qaadan lahaayeen shirka dib u heshiisiinta Galmudug oo gogashiisa ay taala magaalada Dhuusamareeb iyo dhismaha Galmudug oo loo dhan yahay inkastoo saxaafadda ay kulankaasi dibad joog ka ahayd haddana waxaa wararka la helay ee sheegeen odayaasha Cadaado ay guddiga u sheegeen in marnaba aysan diyaar u ahayn inay ka qayb galaan shirka dib u heshiisiinta ee ka dhacaya magaalada Dhuusamareeb sababaha ay ku diideen ka qaybgalka shirka odayaasha Cadaado ayaa waxaa lagu sheegay in guddiga ay u gudbiyeen in shirkaasi ay doonayaan in lagu qabto magaalada Cadaado isla markaana ay tahay xarunta baarlamaanka Galmudug wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in xubnaha guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta Galmudug oo hogaaminaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Baadiyow ay odayaasha dhaqanka u sheegeen in go'aankooda uu u gudbin doono madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug ayaa waxa ay socdaal hore ugu mareen Xaraale Huurshe Balanballe Cabudwaaq iyo Gaalkacyo waxaana dhammaanba deegaanada ay tageen waxgaradkooda ay la afgarteen in ay ka qayb qaataan shirka dib u heshiisiinta Galmudug hase ahaatee beelaha degan magaalada Cadaado ayaa noqday beelihii ugu horeeyay ee yimid inay ka qayb qaataan shirka dib u heshiisiinta ee lagu qabanayo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka waa xarunta baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Galmudug waxaa daawanaysan qaybaha dhexe warka warbaahinta kaahiye media ciidamo fara badan ayaa waxay la wareegeen sugidda amniga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxay la wareegeen guud ahaanba amniga magaalada Kismaayo halkaas oo dhawaan la filayo inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha ee dowlad goboleedka Jubbaland magaalada Kismaayo waxaa ka socda diyaar garow lagu jiro doorashada madaxweynaha Jubbaland waxaana hay'adaha amniga maamulkaasi ay sheegeen inay amniga si weyn u xaqiijin doonaan maanta ayaa waxaa amniga magaalada Kismaayo lagu wareejiyay ciidamo ka tirsan kuwa booliska Jubbaland waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen in amniga Kismaayo aan gorgortan laga galan isla markaana la xaqiijin doono ciidamo qaarkood wata gaadiidka dagaalka ayaa waxaa lagu arkayay wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo iyo xaafadaha qaar waxaana dadka Kismaayo ku sugan ay sheegayaan in mararka qaar ay gaadiidku baaritaano sameynayaan taliyaasha ciidamada booliska degmada Kismaayo oo warbaahinta la hadlana waxa ay sheegeen in ciidamada looga baahan yahay in amniga xaqiijiyaan magaalada Kismaayo ayaa waxa ku sugan ciidamo isugu jira booliis
iyo military oo kamid ah kuwa Jubbaland iyo ciidamo Kenyan oo ku howlgalaya magaca AMISOM waxaana magaalada Kismaayo laga dareemayaa u diyaar garowgii ugu dambeeyay doorashada madaxtinimo ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaana uu ku soo aadaya iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay aad u daneynayso inay iyadu qabato doorashada madaxtinimo ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland ayaa u dagaalamaysa in iyaga loo madax banaaneeyo doorashadooda saaxiibayaal dhanka kalena qodobka ugu dambeeya gudaha dalka Soomaalidana barnaamij looga soo horjeeda madaxda dowlad goboleedka Puntland ayaa ka dhacay qayb ka tirsan gobolka Bari qaar kamid ah shacabka deegaanka Ceel Daahir la yiraahdo ee gobolka Bari ee Puntland ayaa waxa ay dhigeen barnaamij cabasho uga soo horjeedana xukun dil toogasho maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ay maalintii shalay ku riday askari ka tirsan ciidamada maamulkaasi askariga maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ee xukunka ku riday ayaa lagu eedeeyay fududeynta dilkii Boosaaso lagu geystay maarayihii dekada Boosaaso ee shirkadda B&O Powell Anthony Famosa shacabka ayaa sheegay in askariga la xukumay oo lagu magacaabi jiray Xidigle Maxamuud Axmed Maxamed Sheekeeye xukunkiisa uu yahay mid xaq darro isla markaana madaxda Puntland aysan cadaalad falin shacabka deegaanada kala duwan ee Puntland qaar kamid ah dadka barnaamijka dhigaya ayaa wax ay sheegeen inuu sharci darro yahay xukunka lagu riday askarigaasi waxaana ay dalbadeen madaxweynaha Puntland ka dalbadeen inay ka fiirsadaan fulinta xukunkaas oo ay sheegeen inuu yahay mid sida ay sheegeen dawladda shisheeye lagu raali gelinay barnaamijyaasha iyo wadooyinka deegaanka Ceel Daahir la yiraahdo qaarkood xiray iyaga oo markaasina halkaasi ku gubay taayiro kala duwan maalintii shalay ayaa ahayd markii maxkamadda ugu sarreysay dowlad goboleedka Puntland ay xukun dil ah ku riday askari u dhashay askari ka tirsan ciidamada maamulkaasi oo sida la sheegay fududeeyay dilkii loo geystay Powell Anthony Famosa waxa daawanaysan saaxiibayaal warka warbaahinta Kaahiye Media qodobada gudaha dalka Soomaalida ayaa intaas kaga gudbeena iminkana qodobka dibadda ku dhawaad 20 qof ayaa ku geeriyooday diyaarad military oo ku burburtay dalka Pakistan inta la xaqiijiyay 15 qof ayaa geeriyootay halka 10 kalena ay dhaawacmeen kadib markii diyaarad military Pakistan ay leeyihiin ay ku dhacday xaafad ka tirsan magaalada Rawalpindi la yiraahdo ee dalka India dad dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa u badan shacab waxaana dadka dhintay isugu jireen 5 qof oo kamid ah shaqaalaha diyaaradaha iyo 10 kamid ah dadka deganaa xaafadda ay ku dhacday diyaaradda dabka ka dhashay diyaaradda burburtay guud ahaanba waxa uu burburiyay guryo dhowr ah oo ku yaala goobtaasi iyadoo ay tiraan dad kale oo gurmad loo sameeyay isla markaana la soo badbaadiyay ilaa iyo haatan ma kala cad waxyaabaha ka dhashay shilka ase yeeshee magaalada Rawalpindi oo u dhow caasimada Pakistan Islamabad ayaa waxa ku yaala saldhigyada militariga ee ugu waaweyn ee dalkaasi gudaha saaxiibayaal waa naga inta war wixii dalkii dibadda naga soo gaaro aad ka daawanayseen warbaahinta Kaahiye Media waad ku mahadsantihiin daawashadiina hamugaan haddii aad channelkan ku cusub tahay inaad saarto subscribe like aad share aad la wadaagto saaxiibada warkan kiisa xiga amaana Allah